salaamullaahi calaykum soo dhawaada saaxiibadeenna wanaagsan badanaaba halkan waxaynu ku wadaagnaa waxyaabaha noo aragno muhiimadda maantana waxaan inoo wadaa astaamaha lagu garto qofka caqliga badan inaad barataa hal heerka caqligaagu halka uu taagan yahay maahin wax ceeb ah sababtoo ah waxa laga yaabaa dad badan inaanay is ogeyn heerka caqligoogu inta uu marayo waxaan ku hayaa barnaamijka oo anfici doona ana rajaynayo inaad wax badan ka ogaan doonto garaadkaaga ama caqligaagu halka uu marayo ama heerka uu gaarsiisan yahay haddii aanu barnaamijka hore ugu sii soconno qodobka koobaad waxaad dhibsataa shanqadha inaad shanqadha dhibsataa ma aha oo kaliya inaad moogtahay caqli badan tahay waxa laga yaabaa in aad iyo aad runtii aad u caqli badan tahay sababtoo ah maskaxdaadu ma qaadi karto qodobka labaad fartaadu way qaloocan tahay qodobka saddexaad waa dad jecel inay wax isbaraan xataa haddii aanay aqoon xidhiidh la lahayn waxa ay jecel yihiin mar walbaaba in ay wax kororsadaan meelaha wanaagsan ee waxay ku kororsanayaanna ay aadaan qodobka afraad waa dadku odhanaya waxaasi ma qaban karo ama waxaasi ma aqaano dad ayaaba u arka ceeb in ay dhahdaan waxaan ma qaban karo in ay tahay fashilkii ugu weynaa adduunka ama waxaan ma awoodi karo iyagu waxay kuugu jawaabayaan si yaroo fudud waxyaabahaanay qaban karin waxaan ma qaban karo waxaan awoodayda ma aha aqoonsi uma lihi qodobka shanaad waxay xakamayn karaan dareennadooda badanaa waxaynu aragnaa dad mar aad iyo aad looga xanaajinayo ama aad iyo aad loo dhibaataynayo mar walbaabana dareennadooda qaban kara iyo dad marka laba hadal la isweydaarsado aan dareenkooda xakamayn karin qofku haddii uu dareenkiisa qaban karana waa calaamad weyn oo ku tusinaysa inuu qofkaasi yahay qof caqli badan fadlan calaamadahan soo sheegnay haddii aad ku jirto muuqaalkan like saar saaxiibadana la sii wadaag haddii aynu barnaamijkeenna ku sii soconno qodobka lixaad waa dad kaftan badan badanaa waxaynu aragnaa dad aad iyo aad u kaftan badan marmar badanna aynu la yaabno kaftankoogu uu xaddaaf yahay qofka caqliga badan leh waa qof aad iyo aad u kaftan badan si fududna kaaga qoslin kara qodobka toddobaad waa dad jecel wax cusub inay bartaan inay wax cusub barataa ma aha oo kaliya inay caqligaaga dhisayso ee waa fursad kale oo ku tusinaysa inaad caqli aad iyo aad u sarreeya leedahay qodobka siddeedaad kuma degdegaan go'aanadooda marka ay go'aan qaadanayaan waxa u qaataan si caqliyeysan kumana saleeyaan dareenka xilliga ku jiraan waxay eegaan positive-kiisa iyo negative-kiisa haddii ay wixiisa xumbatana waxa laga yaabaa barnaamijkaasi inay ka baxaan qodobka sagaalaad waa dad aan dagaal badnayn badanaa waxaynu aragnaa dad aan dagaal badnayn oo innu nidhaahno waana dadkaan ugu liitiga badannahayn cayno ee nidhaahno kani talo ma dumar buu la soo koray ma dumar shaneeyaa waa maxay dareenkiisu waa sidee noocma rag waa kii ilkaha iska daadiya kalana dhaqaaqa laakiin waxaa laga yaabaa in si caqliyaysan ku xalliyo wax walba lagamana yaabo inuu dagaal badan galo qof bila'aadama oo dagaal ka maran ma jiro qof walbaaba uu soo dagaalamay mar ka mida noloshiisa ama marar badan waxaana laga yaabaa marar badan oo kale inuu dagaalamayo laakiin dadkani dadka kale la mid ma aha qofka caqliga badanle waxa uu kaga dugan yahay waa qof aad iyo aad dagaalkiisu u yaryahay qodobka tobnaad waa qof miisaankiisu yaryahay inaad la yaabtay ayaan filayaa balse ha yaabine yaabka la heshii daraasad la sameeyey 2018kii laguna sameeyey da'aadda 19 ilaa 21 ayaa waxa lagu ogaaday in dadka miisaankoodu yar yihiin ay keeneen 100% imtixaanka caqliga halka dadka kalena keeneen 98% waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu ku anfacay intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo